bal waxaad faahfaahin naga siisaa ugu horeyn shirkii maanta ka dhacay deegaanka Caroole ay isugu yimaadeen odayaasha deegaankaasi. waxay isugu yimaadeen odayaasha deegaanka Caroole hol intii weyne shir ay kaga tashanayaan aayaha deegaankooda iyo amnigooda iyo sidii ay maleeshiyaadka kusoo diiday isaga saari lahaayeen. waxayna ka soo saareen 4 qodob. qodobka koowaad inaan laga kulmin waqtiyada meesha marayay iyo dadkan meesha yaacaya lahaa waxaana waqtiga sheeganayay cid deegaanka Wacays Cabdullaahi inaanay magaceeda kula kulmi karin lana kulmin dibna loo kulmi doonin wax yidhina ka dhaxayn karin. qodobka labaad waa inaan deegaanada maleeshiyaadka joogaan deegaankaas aan wax ganacsiya iyo xiriiri dhex mari karin. qodobka saddexaad sidii la isaga saari lahaa nimankaa kusoo diiday deegaanada oo lagu diyaar garoobi lahaa loola dagaalami lahaa. qodobka afraad oo midaynta beesha iyo deegaanka inay u midoogaan danahooda iyo horumarkooda iyo sida ay masiirkooda iyo nabadooda uga tashan lahaayeen. go'aamada ayaa maanta ka soo baxay. waxaa odayaasha soo saaray adigoo afhayeenkii odayaasha deegaanka Shaafici Aw Jaamac Xirsi Xawte. odayaasha soo saaray waxaa ka mid ah Xirsi Jaamac Dhiil, Cabdisalaam Aw Tacaale, Axmed Maxamed Aw Xasan, Qaara Xaaji Jaamac Rigo, Xirsi Nuur Diiriye, Aadan Muuse Cawl, Cabdullaahi Cali Xirsi, Cali Yuusuf Nuur Harsiile, Hurre Cali Gaalees, Nikaditaan Saalax Yuusuf, Cali Jaamac Cali Cigaal. odayaasha deegaanku waxay xiriir la leeyihiin deegaanka Badaalo, odayaasha deegaanka Badaalo, Qaasda Ordan iyo odayaasha Taleex Kalmaayo sidii deegaanadan meeshaasoo isku xilfiya isku deegaana sidii loogu midoobi lahaa. usoo jeedinayaan qurbajoogta iyo maamulka Khaatimo inay ka qayb qaataan difaaca dalka, inaan la niyad jabin, in sidii nimanka la isaga saari lahaa loo midoobo. waxaa shalay ka dhacay dagaalkaasi wuxuu ka dhacay deegaanka Caroole xilli ay magaalada gudaheeda soo galeen nimankaasi waa laga saaray, dib baa la isaga saaray. dhaawacyo yaryar oo fudud baa dhacay, ilaa 7 qof baa dhaawac noqday. bixjuulana iyadana dagaal ka dhacay, xabad la isu adeegsaday oo ay gaadiid nimankan maleeshiyada Somaliland leeyihiin tageen, kaana waa laga soo horiyey. waxaa kaloo dhacday maamulka dadka deegaankana waxay go'aan ka gaareen inaanay la kulmin waqtigii meesha marayay. taasina guul bay noo tahay, wax xiriiraya kulana lama yeelan. waxaanu kaloo cambaaraynaa cid kasta oo deegaanka Taleex u dhalata oo la kulanta. waxaanu beesha Nuur Axmed ugu baaqaynaa nimanka sheeganaya xildhibaanada Eedada Yuusuf Alkoore iyo Dejo haddii dadka iyo dalka iyo deegaanku inaga dhaxayso nimanka inay iska saaraan. marlabaadka waxaan u soo jeedinaa iyagu hadday dhalashahaan kusoo dhaweynayaan ay leeyihin waa niman deegaanka u dhashay deegaanada inayaan soo marin, hadday soo maraanna wixii kala kulma iyagaa qaba. waan gartay afhayeene qodobadaas mid ka mid ah haddaynu dul istaagno qodobkan sidii loogu midoobi lahaa in cadowgan dalka laga saaro maxaa laga yidhi qodobka isaga? waxaa markii laga falanqeeyey in loo midoobo dhalinyaro, odayaal, cid kasta dal iyo sidii cadowga xoog loo hortaagi lahaa. waxaan kala hortaag ku haynaa inaan ka baxayn waan jeclahay inay hadda ka baxaan. sidaas darteed xaaladdeeda isaga saaro deegaanada dariska aanu la nahay. waxaan nabadaan kula noolaanana cid kastoo aanu xiriir la samaynayno oo aan sidii cadowga ay isaga saarna inaanu xiriir kula samaynana waan soo dhaweynaa. xiidana waa hodanaa runtii kiis caadilka guud ee beeshu Cabdirashiid Xasan ayaa dowladda deegaanada maqnaa inuu deegaanka si degdeg u yimaado dagaalka codon ka soo baxo baanu ugu baaqaynaa isagana. waa kiis caadilka beesha, kiis caadilka guud ee beesha, odayaasha nabaddoonnada iyo ogaasha iyo beesha kiiskeedii caadil baa dhalay, cabdicilmi baa dhalay, in sharaf le baa weyn. isagana ixtiraam baa loo hayaa inuu deegaanka iyo dadkiisa la kala noqdo oo yimaado oo si degdeg u yimaada isagana baaqay ku jira loogu baaqay. waan gartay qodobadan odayaashu soo saareen garaad Maxamuud Cismaan Mashaqre oo ka mid ah garaadka deegaankaasi isimada Khaatumana kuwooda hadda ugu dhaqdhaqaaqa roon muxuu ka og yahay? waa ka wada socdaa qodobada odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo dhan sida garaad Maxamuud Cismaan Mashaqre, garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed oo hadda ku sugan iyo garaadada kaleba. waxaanu ka halkan hambaliyo iyo bogaada uga tagnaa garaad Salmaan Garaad Maxamed oo maleeshiyada Somaliland xubnaha ka socday inuu la kulmay isla diido garabka ku dhuftay. qodobka isaga haddaynu dul istaagno waxaa la sheegayaa in garaad Salmaan Garaad Maxamed uu xudun uga baxay dhanka baadiyaha deegaankaasi uusanna diiday inuu la kulmo maleeshiyadan cadaadis kaga yimi dadka deegaanka. arrintaa maxaad nooga faahfaahin kartaa? waa xaqiiqo jirta garaadka iyo dadkiisa deegaanka iyo shacabku waxay qaateen nimanka inaan wax kala maala
dagaalkiina sidaa darteed buu uga baxay. kaasina wuxuu ahaa Shaafici aw Jaamac Xirsi oo khadka taleefanka igu waramayay anigoo ah Cabdixakiin Siciid Maxamed oo ku sugan stuudiyaha magaalada Nairobi ee shabakada wararka Khaatumo iyo Soomaaliyaba godalonews.com. aad baa mahadsantahay Shaafici oo ku salaamaya.